ismaanosi oo jawaabaya waxaan ugu jawaabayaa aniga horta istiin haddaan alla noqdayba isiinkay lacagteeda ay gashay isigay uma dhiibin. codkaasi aad maqlaysaan wuxuu ahaa gabadh Soomaaliyeed taas oo magaalada Muqdisho habeenkii xalay ah ugu dhimatay daroogo ay cuntay. waxayna sheegaysaa codkada qayb ka mid ah inuu yar dhalinyaro uu siiyey daroogo. beryahan magaalada waxaa kusoo badanaysaa geedka daroogada iyada oo maalin hore aan kasoo hadalnay inuu jiraca uu daroogo loo isticmaalo. haddana waxaa kale oo loo isticmaalaya irbado fara badan oo dhalinyaradu ay isku dirayaan iyada oo hadda madaxoodiba ay bilaabeen inayba wadnuhu uu istaago. ugu dambeyntii xalay baa magaalada Muqdisho gabadh bay daroogo u dhimatay ay qaadan jirtay. waxaa faahfaahin doona warkaana la socday ishana ku haya saaxiibkay Cabdi. cabdiow daroogadan aan maalmahan ka hadlaynay ee Muqdisho kusoo badanaysa waxaa la sheegaya inay gabadh ku dhimatay. gabadhaas maxay ahayd oo say daroogada ugu dhimatay? والله horta maado gabadhaas magaalada Muqdisho ay ku dhimatay xalay waataan marka wararkeen horna uga hadalnaa jecelahay xalay gabadhaas daroogiska ay hore u isticmaali jirtay muddo 5 sano ah reerkeeda ka maqnaada leeyahay waxaana ka imaaday Puntland laakiin magaalada Muqdisho ay ku nooleed waxaana sheeg dadka TikTok ay friends la ahdo ninkan la yiraahdo Usman Osi oo la leeyahay asaga daroogay oo cirbadaha ay waxaan baray marka ayada hadda waatan hadlayso dhehayso aniga hadaan daroogo cunay Ismaaciil waxba igama gelin daroogada lacagteeda ay sheeg ay bartay waxaas ay ku hadlaysay marka gabadhan ugu dambeyn adiga xalay ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho gaar ahaan agaarka sayidka marka waxay sameysay cirbada waxay ka qaadan jirtay xididada marka xididada jirkeeda ayay ka qaadan weysay oo barar badan ay daawada soo celisay waxaan chemical iyo wax qashin ay ku duraysaa marka dhibaato badan ayaa mees ka dhacday ugu dambeyn waxay sameysay iyadoo socoto waxay ku fikirtay inay cirbada ay dhoonta ka qaadato xididada dhoonta inay cirbada ka qaadato marka waxay u baahatay qof duro oo cirbadaas dhoonta ka siiyo markii waxay ku fikirtay inay baxdo qof raadiso oo sheeg meelaha intay tagto dhaad war halkan cirbada iga dur bas markay baxday socotay aad xoogaa yar ay socotay sheeg gabadha way dhacday istaagi ka dhacday dad baa ku soo baxay marka waa la qaaday oo isbitaal la geeyay gabadhii sheeg isbitaal Madiina ayaa la geeyay oo sheeg baaritaan lagu sameeyay gabadhii way dhimatay marka waxa la gabadhan way dhimatay jirkeeda marka la baaran daraagiisa ka buuxay marka baaritaan iyo dadka qaab warar fara badan la isla dhaxmarayo yarkaas TikToker-ka Usman Osi la yiraahdo oo caan ah baraha bulshada caanka ah mar walba TikTok ku jiro waxa la ninkan daroogiska ay gabadha oo siin jiray marka warkaas ayaa suuqa ku jiro laakiin ma hado wixii karuna ilaaha naga og laakiin waa aad waxa sheeg hadda ay nafteeda soo hadal qaadaysa oo mar ay live ku jirtay waxa leedahay aniga hadaan daroogo cunayo hadaan sheeg aan cuninba sheeg idinkay ma taalo aniga lacagteeda daroogada cunsiisay teeda kale codkeeda waxa laga dheehan karaa qof macnaha aad u baahdilan oo inay sheeg daraagis isticmaashay oo laga dareemaa carabkeeda iyo hadalkeeda waa culeys marka daroogadu way dhib badan tahay shacabka Soomaaliyeed dhibaato ay ku haysaa hadda muddooyinka dambena Muqdisho aad ugu soo badatay waxaan leeyahay dadkan shaqo la'aanta iyo waxbarasho la'aanta iyo sidoo hore waxba ahaan iyo waxaas daraagiskan waxyaaba taambuuga iyo waxyaaba daroogada iyo kiniinaasha la isku duro iyo jilaca waxa laga dhiganayaa sheeg darooga oo digsi inta lagu karkariyo hadana la cabaya oo sanka loo dhiganayo waxyaaba badan la sheega waxaan wax ka jira ma naqaano ilaahay hanaga qabto laakiin daraagis wax fiican ma aha gabadhaas xal way dhimatay isbitaal Madiina meedkeeda taala inta muddo sawiraha laga qaaday oo baraha bulshada la geliyay marka aqoonsi toos ah wali la meel ugu dambeyn waxa la yiri gabadha halkaas ka imaaday reerkeedana kolba in la xiriiriyo oo maleynaa ma hado. okay cabdiow bahashan daroogada dalka Soomaaliya gaar ahaan hadda magaalada Muqdisho waxaad moodaa inay qabsatay waad arkaysay dhibaatadii dadka shacabka ay kala kulmayeen ciyaalka yararka ahaa iyo dhibkay ku hayaan dadkii dhalinyarada ahaa kale oo barkood guryaha iska joogana darooga ay si xad dhaaf ah u isticmaalaan Soomaalidii waxa ku dhacay uquba min Allah rabbaaniya ku dhacday inay diintoodii ay ka tagaan iyo inay darooga isticmaalaan iyo inay islaayaan inta un bay shaqo ka dhigteen iyo inay diin isku diriiraan oo ay ku maxabsan xagee dadkan Soomaalida uqubadu xagee kaga dhacday xagee laga soo galay dadkan yaa haysta oo habarkan xagee kaga dhacay horta maado dadkan horta intooda badan waa dadka free waa dadka gacanta kuma jiraan dadka waxay ku leeyihiin saaxiibay aadayaan ama dad friends ay baranayaan friendska ayaa haleeyo inta badan marka groupaysi iyo in la baxo iyo in badda la aado iyo in la soo babaashaalo iyo dalxiis iyo waxyaabahaas magaalada ka jiro marka dalxiiskaas iyo socodkaas faraha badan dib ayuu keenaya waxaana fiican in qofka horta daraagiska marka goolin raga doo yahay meel isaga tuuri kartaa waxa ku xareyn kartaa meel college ama meel kale ku xareyn kartaa ama meel dhaqan cilad ku xareyn kartaa qof dumar meel gees ma taqaanid marka cabsi fara badan ayaa jirto dumarka way ku biireen waxyaabahan daraagiska aad ugu biireen dhibaato fara badan ayuu ku hayaa
marka Nairobi oo kale magaalada Muqdisho oo kale meelo kale Arsabo Hargeyso meelo badan waxaan ay dhibkaan ay ka jiraan shacabka Soomaaliya meel bay joogaan Mareykanka iyo America iyo Europe meel walba waa laga sheegaa waxaas marka waxaan daraagiska wax fiican ma aha waxyaabo isha cocaine oo sanka laga qaatay iyo waxyaabo kale oo cirbado iyo kiniyaal la isku daro iyo daraagis oo ay nooc ah ay dadka qaataan marka waxaa lagu leeyahay dhalinyarada gurubaysiga jiro gruubkaas waxay barayaan marka darooga nooc ah marba waxay barayaan qof marba nooca lagu tijaabinaa marka ugu dambeysay magaalada Muqdisho jilica darooga ah markay keeneen magaalada Muqdisho dad waxa arkaysa dhacay waxay leeyihiin qofkan uu jilicaysan yahay jilic ayaa ahay marka jilicaas waa wax la yaabo waa wax nagu cusub marka daraagada way ku soo badatay wadanka wax controlna ma jiraan haddana waxaa leeyahay markii daraagiska xataa waaweynka marka laga dhowro oo xataa meelaha qaar laga ilaaliyo oo dadka in laga isheeg ay gataan laga ilaaliyo waxay sameynayaan kiniyaal ama waxyaabo farsamooyin ay la imaanayaan kiniyaal dhowr nooc isku darayaan daraagisa ka dhigayaan qofka bini'aadamka jirkiisa haday daawada ka badataa naftigeeda daraagis uu noqonaa marka daraagiska fara badan ay ku hayaan wadanka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo isha Soomaaliya kamid ah waxaan leenahay Ilaahay Soomaalida ha badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheeganaa inay gacanta ku dhigaan dadkaas inay ilmaha ay aruuriyaan askartu inay meel u xarayaan jeelalkii xataa in la geeyo oo dadka xataa isheeg waxbarasho iyo farsamo kale loo sameeyo hadda xarunta nabad sugidda oo kale meelaha qaar waxaa farsamo ayaa la baraa oo dadka xabsiga ku jiro sida sirraha loo sameeyo sida arqaanka loo talo iyo waxyaabaha aad asluubta xarunta asluubta aad loo baraa marka waxaa fiican meelaha qaar in dadka wax lagu baraa fiican maado qaabkan hadda wax ku socdaan qaab fiican ma okay ayadoo sida ay tahay si kastaba ha ahaatee laakiin dadkii Soomaaliyeed dhaqankii way ka guureen oo hadda waxaa taagneyd marka hore oo quba ka taagneyd inay geedka la dhaho TikTok aad aragtay in ay dadku ayagoo qaawan ay soo galaan oo iscaay haya ilaa barkood qaawana caadi muluq aba lagu dhex arkaba TikTokyada dhex ordahaya waxaa kaloo jira in la iska caayo oo cay intii baraha la soo fariiso muuqaalyada aaladan hadda hormartay dhan Facebook iyo TikTok waxay noqotay waa la iska caayo oo wax aan af ku qabanaynin dadkii ay la soo fadhiistaan Soomaaliyeed Soomaali aad iyo aad bad moodaa inuu dhaqankeeni inaga aan lahayn suubana inuu u halaabay Soomaalida dhaqan waxa lagu aqoon jiray xishoodkuna diintu sal ku leeyahay wixii oo dhan way isla gubteen dadkii qof u turahaya male qof ka xishoodna male cay baa la isku miisay waxa kaloo soo badatay haddana ayadana reerihii isqabay oo nin naag waa la iskuursan jiray intay ka furaan kala tagi jiray oo markay isfarantay banaanka soo fadhiisan haddana cay isku miisahaya waxaan dhihi karnaa waa un cudur Soomaalida ku dhacay maxaan malayn karnaa lagu daaweyn karaa والله horta waxyaabahan dhaqan xumada waxa aad uga qayb qaatay baraha bulshada haday ahaleed Facebook haday ahaleed TikTok haday ahaleed aaladaha kale oo baraha bulshada lagu xiriiro YouTuberada waxyaabahaas oo dhan waxay ka qayb qaataan dhibaatada wadanka ka jiro iyo Soomaalida haysto waxyaabaha qaabka loo isticmaalo ayaa ka qaldan qaab ilbaxnimo ay u maleeyaan isticmaalaya laakiin qaab ilbaxnimo ma aha shacabka Soomaaliyeed xishooda lahaan jiray waa run guurka xushmado lahaan jiray qof markii la furay dadka familka xaafadda jooga bas ogaan jiray qof markii la furo hadda waxaa laga ogaana America meel baa laga ogaana baraha bulshada lagu baahinaya haddana labada isfurtaa soo caynayso haddana wax yar ka bacdi waxay leeyihiin baraankii ahayd wax yar ka bacdi waxa lagu leeyahay isku noqdeen warniyo dhaqan xun oo Soomaalida lagu aqoonaa ay sheeg la bartay marka baraha bulshada ay aad ugu jirtaa waxaan oo sheeg YouTuberada iyo TikTokerada iyo waxaasna waxay ka qayb qaadanayaan luminta bulshada sababtoo waxay aad ugu dheeraadeen waxyaabaha maanka dooriyo iyo dhaqamada xun iyo in qaab qabiilada la isku caayo waxyaabo fara badan ayaa meeshaas laga bartay marka Ilaahay ummadda Soomaaliyeed ka qabtay dhibaatadaas waxaan u sheegay inay ka waantoobaan daraagiskana dadka wado inay gabadhaas ku waana qaataan meesha cilada ku dhimatay ayadoo daraagiska codkeeda qaabka u maqlaysan qaab fiican ma ahayn Ilaahay ha u naxariisto in wixii dambiga gashan Ilaahay ka cafiyo idinkan waxa way iska cafiyay gabadhaas idinkan waxa way iska joojiya dhibaatada hadda ku jirtaan daraagisna meel fiican ma aha Ilaahay ummadda Soomaaliyeed jid fiican ha ku toosiyo okay kuwaas waxaan qodobada wararkeeni ugu dambeeyay iyo falanqayntii aan kaga hadlaynay sida ay